Waxaa caawa magaalada Muqdisho ku geeriyooday ciyaaryahankii hore ee xulka qaranka ee kubadda kolayga iyo sidoo kale naadiga Caawa iyo Maalin ee Horseed. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Dhammaan bahda isboortiga dalkeena Soomaaliya ayaa ka tacsiyeynaya geeridii ku timid ciyaaryahan marxuum Cumar Cali Dhuxulow oo markaasi u ciyaari jiray naadiga Horseed iyo sidoo kale xulka qaranka ee kubadda kolayga ee dalkeena Soomaaliya. Waxaa markaasi ka tacsiyey dhammaan bahda isboortiga dalkeena Soomaaliya ee ugu horeeya La Squadra della Sabito. Dhammaan bahda ciyaartoydii hore ee dalkeena Soomaaliya ayaa ka tacsiyey, sidoo kale naadiyada dalka ayaa ka tacsiyey sida kooxda kubadda kolayga ee dekedaha iyo dhammaan naadiyada kale ee dalka ka jira ayaa ka tacsiyey geeridii ku timid Allah u naxariistay Cumar Cali Dhuxulow. Sidoo kale naadiga Horseed ayaa iyadana ka tacsiyeysay geeridii ku timid laacibkoodii hore ee ciyaaryahan hore ugu soo ciyaaray Cumar Cali Dhuxulow. Sidoo kale xiriirka kubadda kolayga dalkeena Soomaaliya iyo guddiga fulinta naadiyada kubadda kolayga ayaa si weyn ugu tacsiyey ehelka, qaraabada, asxaabta iyo sidoo kale bahda kubadda kolayga ee dalkeena Soomaaliya uu ka geeriyooday marxuumkan oo markaasi lagu magacaabo Cumar Cali Dhuxulow oo markaasi ka mid ahaa ciyaartoydii waaweynaa ee dalkeena soo maray, guulo waaweynna la gaaray. Naadiga xoogga ee kooxda Horseed oo markaasi u soo ciyaaray sidoo kalena xulka qaranka dalkeena Soomaaliya ee kubadda kolayga ayuu qayb ka ahaa. Dhammaan bahweynta ayaa caawa ka tacsiyeynaya geeridan laacibkii hore ee xulka kubadda kolayga ee Horseed iyo sidoo kale dhammaan bahweynta dalkeena Soomaaliyeed ee isboortiga ayay ka tacsiyeynayaan. Allah u naxariisto. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun.